wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idiin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena maalinimada waxaa ka mid ah waa sidee xaaladda magaalada Muqdisho iyo shirka golaha wadatashiga qaran ee hadda ka soconaya xarunta afisyoon ee magaalada Muqdisho shirkan oo maanta lagu wado in si toos ah loo soo gabagabeeyo iyo warmurtiyeedka kulul ee laga soo saari doono waxaan dul istaagi doonaa qodobada culculus ee ku jira warmurtiyeedka iyo sidoo kale kulamadii hore u dhacay iyo waxyaabaha laga diiwaan galiyay waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa go'aanadii foosha xumaa ee beesha caalamka oo la soo warinayo in dowladda Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya ay si weyn uga carootay in golaha wadatashiga qaran loo meerinayo go'aanada ay ka gaari lahaayeen dalkooda iyo dadkooda waxaan sidoo kale wararkeena idinkugu haynaa ceeb iyo fadeexad laga diiwaan galiyay kulankaasi iyo sidoo kale rooble oo la sheegay inuu si toos ah isugu dhiibay beesha caalamka iyo guud ahaan reer galbeedka maxay mucaaradku kala hadleen madasha kadib ka qaybgalkii shalay shirka wadatashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho ee shalay lagu casuumay waxaan sidoo kale ku eegi doonaa wararkeena duhurnimo halkee ayuu gaarsiisan yahay khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo xarkaha goostay maxaa la filan karaa haddii uu sii daba dheeraado maxayse tahay go'aanka filla Soomaaliya ee ka dhanka ah ra'iisul wasaare Roble ee xilligan la qorsheynayo qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan barnaamijkeena duhurnimo ku qaada dhigi doonaa fadlan daawade haddii ay tahay markii koowaad ee soo boqoto channelkeena calanka TV subscribe doo furagan baleelka si aad u noqotid daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena mahadsanid waa sidee xaaladda dalka iyo shirka golaha wadatashiga qaran ee hadda ka soconaya xarunta Efesoni iyadoo maanta lagu wado in lagu soo gabagabeeyo magaalada Muqdisho saddexdii maalin ee la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho ka socday kulan u dhaxeeyay beesha caalamka iyo golaha lagu magacaabay inay yihiin golaha wadatashiga qaran oo go'aaminaya arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya shirkan oo dibad joog ka ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la rajeynayaa in maanta la soo gabagabeeyo iyadoo sidaan ognahay shalay ay ka qayb galeen xubnaha qaran dumiska ah ee mucaaradka kulankan oo aad loo qaada dhigay xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso iyo sida arrimaha doorashooyinka loo dadajin lahaa ayaa waxaa ku milnaa in beesha caalamku ay doonaysay ama kulanka ay ku soo biirisay in meesha laga saaro madaxweyne Farmaajo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo beesha caalamka ayaa waxaa ka dhex taagan khilaaf xadki dhaafay kadib markii uu soo shaacbahay markii wasiirka arrimaha dibadda uu ku dhawaaqay in terminalka Mekfon ay soo gali jireen ama ay airportka ka soo gali jireen beesha caalamka laga kansalay kulankan ayaa sida la sheegayo warmurtiyeedka ka soo baxaya waxaa tafatir ku sameynaya beesha caalamka iyada ayaana soo sheegi doonta sida la sheegay maadaama uu ahaa shirku mid u afduuban iyaga shalay markay mucaaradku ku soo biireen shirka waxay xoojiyeen arrimaha ka dhanka ah madaxweyne Farmaajo maadaama ay ka midaysan yihiin in wadanka laga wareejiyo madaxweyne Farmaajo sidoo kalena loo dhiibo qofka amar qaadanaya beesha caalamka shirkan golaha wadatashiga qaran ayaa sida la sheegay marnaba aan looga hadlin arrimaha doorashooyinka balse qorshaha ugu weyn oo shirkan looga hadlay ayaa ahaa sidii meesha looga wareejin lahaa madaxweyne Farmaajo oo shirka dibad joog ka ahaa isqabqabsi iyo khilaaf weyn oo ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo madaxweyne Farmaajo ayaa sababay in labadooduba ay noqdaan laba mas'uul oo loo kalluumeysto maadaama ra'iisul wasaare Roble uu sida la sheegay isu dhiibay beesha caalamka waxaa jiray in asbuuc ka hor dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay kansashay terminalka qaar ahaan qaybta ee reer galbeedku soo mari jireen iyagoo aan baaritaano sax ah soo marin kadib markii dowladda federaalka ay go'aansatay ama ka codsatay in loo diro ciidamo boolis ah oo baaritaanada ka qayb qaata AMISOM beesha caalamka iyo UNISOM ayaa ku adkaystay inaysan suuragal ahayn in ciidan Soomaaliyeed ay baaraan ama ay hubiyaan meesha ay ka soo galaan airportka arrintan ayaana dhalisay in shaki weyn uu imaado kadib markii beesha caalamka ay jabisay heshiiskii ahaa in wadanka wax kasta oo soo galaya si wadajir ah loola socdo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ku eedeysay qaramada midoobay AMISOM iyo dalalka kale ee caawiya Soomaaliya in si sharci darro ah ay dadku soo galiyaan
gudaha magaalada Muqdisho sidoo kalena hub iyo waxyaabo sharci darro ah ay eraboorka soo galiyaan maadaama baaritaano dhab ah ay soo marin go'aanka ay dowladdu soo saartay kadib hadda waxay si toos ah u soo maraan terminaalka caadiga ah oo dadka shacabka ah ay soo maraan walow beesha caalamka ay sheegtay arrintan in security-gooda wax badan u dhibi karto dhanka kalena kulamada ka soconaya Afisyooni ayaa laga diiwaan geliyay dhacdooyin aad u fara badan kuwaas oo niyad-jab ku ah arrimada Soomaaliyeed kadib markii Ra'iisul Wasaare Roble faraha u galiyay arrimaha doorashooyinka beesha caalamka iyagoona dhawaan la rajeynayo inay soo saaraan warqadda wixii ka soo baxay kulankaasi waa markii ugu horeysay oo qof title noocaas ah u haya Soomaaliya oo uu soo gacan galiyo beesha caalamka isagoona arrimaha doorashooyinka isaga faraha ka saaray shirgudoonka shirka waxa uu ahaa Roble balse waxa ka dhex hadlayay Mareykanka iyo UN-ka maadaama hadallada ay soo saaraan ama ay u soo dhiibaan kaliya oo meesha ka sheegayay dhacdooyinka kale ee laga diiwaan geliyay shirka maalinta koobaad ayaa ahayd in Roble uu ka codsaday maamul goboleedyada inay la dhaleeceeyaan wax uu ku sheegay afgambi lagu sameeyay afgambigaas ayaana ah sida isagu uu sheegay markii madaxweyne Farmaajo uu ka qaaday xilka sidoo kalena uu sheegay inuu yahay eedeysane maxkamad suga ah dhacdooyinkan iyo kuwa kale oo cajaa'ib ah ayaa laga diiwaan galiyay shirka waxaana sidoo kale kamid ah in qaybo kamid ah maamul goboleedyada in isku dayeen in Ra'iisul Wasaare Roble ka xayoobiyaan awoodda hogaaminta shirka iyagoo doonaya inay ku wareejiyeen Cabdicasiis Laftagareen oo saaxiib dowladda madaxweyne Farmaajo maamulada qaar ayaana raba in awoodda doorashooyinka lagala wareego Ra'iisul Wasaare Roble iyo guud ahaan dowladda dhexe si ay iyagu u maamushaan dani oo aan faahfaahsanayn kaartada Cabdicasiis Laftagareen oo Farmaajo ka dambeeyo ayaa isna u ololeynaya Laftagareen in lagu wareejiyo golaha hogaaminta qaran ee arrimaha doorashooyinka hadaba suuragal ma tahay in shirka golaha wadatashiga qaran loo dhiibo Cabdicasiis Laftagareen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed maadaama afarta madaxweyne kale oo ka dhaxeeyo xifaaltan qabiil aysan suuragal ahayn in mid kamid ah uu la wareego arrimaha doorashooyinka Dani iyo Axmed Madoobe faa'iido ma ugu jirtaa Farmaajo ma ka faa'iidi doona dhanka kale halkii ayuu marayaa khilaafkii madaxweyne Farmaajo iyo Roble oo asbuuc ka hor lagu sameeyay shaqo joojin sidoo kalena lagu tilmaamay inuu yahay dambiile xaday xoolo dadweyne khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa aad u baahay sidoo kalena waxa uu gaaray beesha caalamka xildhibaanada golaha wadatashiga qaran maamul goboleedyada iyo sidoo kale taliyaasha ciidanka walow madaxweyne Farmaajo uu dagaalka ku guuleystay isagoona gacanta ku hayay wasiiradii ugu badnaa taliyaasha ciidanka kaliya dagaalkaasi waxaa laga dheehan karaa in madaxweyne Farmaajo uu noqday qof gooni u taagan oo isku filan sidoo kalena hogaamin kara dalka halka Roble uu marjac ka dhigtay beesha caalamka dhacdadii ugu dambeysay ee ka dhacday eraboorka markii wasiirka amniga uu ku amray in laga soo saaro eraboorka nabad sugidda ee madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa nabad sugidda ay ku adkaysteen in hadalkaasi uu yahay mid khalad ah ayuu wasiirka amniga warqad calaacal ah u diray beesha caalamka isagoona sheegay in ciidamadaasi laga saaro eraboorka warqadaas ayaa u muuqatay mid beesha caalamku iyadu qortay maadaama ay dooneysay in madaxweyne Farmaajo lagu saaro cadaadis in ciidankaasi laga saaro eraboorka ciidankan ayaana ah kuwii xiray terminaalka dhaqangeliwaygii amarka wasiirka iyo Ra'iisul Wasaaraha ayay isku dayday beesha caalamku in si awood ah ku dhaqangeliso balse madaxweyne Farmaajo iyo tiimkiisa ayaa xalay warqad adag oo diblomaasiyadeed oo wadanka looga ceeranayo xubnaha ugu sareeya beesha caalamka AMISOM UNISOM iyo kuwa kale oo fara badan oo ku soo gudaha dalka qoray waxaan la rajeynayaa in saacadaha soo socda soo saaraan wararkeena duurnimaalka ayuu nooga yahay fadan daawada haddii ay tahay markii koowaad aad soo booqatay channelkeena subscribe oo fara gambareelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyada